hagaag daawadayaal aynu u gudagalno barnaamijkeena ma og tahay toddobaadkan waxaynu ku soo qaadanaynaa qaraxii Zoobe waxay ahayd maalin sabti ah abbaaro 3:45 daqiiqo galabnimo kadib markii laga soo baxay salaada casir xilligaas oo ay dhacday musiibadii ugu xumeed ee abid soo marta ummadda Soomaaliyeed isla markaana aan horay loo arag dhacdo la mid ah waxay ahayd musiibo galaafatay nolosha ku dhawaad 800 oo ruux oo isugu jiray dhimasho iyo dhaawac iyo qaar la waayay kumanaan kalena ay ku agoontooween halka kumanaan kalena ay ku hantibeeleen 14 Oktoobar sanadii 2017 xilli galab ah waxaa isgooska Zoobe oo aad u mashquul ahaa ka dhacay qarax aad u xooggan oo dhabaqiisa laga maqlayay magaalada Muqdisho oo dhan kaasoo ahaa mid aan noociisa oo kale horay ugu dhicin gebi ahaanba dhulka Soomaaliyeed waxaa goobtaasi ku qarxay gaari weyn oo nooca xamuulka qaada ah lagana soo buuxiyey walxaha qarxa isla markaana uu watay qof naftii hore ah qaraxan oo ahaa mid aad u xoog badnaa wuxuu gaaray dhul aad u kala fog wuxuuna qiyaas ahaan burburiyey 300 ilaa 400 oo mitir square ah waxaa ku baaba'ay shacab iyo dadweyne adeegsanayay ama ku sugnaa hareeraha waddada oo markaas aad u mashquul ahayd dadkii ku dhaawacmay waxaa ka mid ahaa wariyaal nabadoonno arday iyo shacab kaloo ku sugnaa goobahooda ganacsiga oo ku yiilay dhinacyada waddada dad badan oo qutulyoomkooda ka dhacsanayay way ku nafwaayeen kuwa kaloo nolosha rajo iyo riyo ka lahaa adduunyadana macaansanayay oo guryahooda carraabo u ahaa caleentooda ayaa cirka ka soo dhacday markaad daawato muuqaallo ay baahiyeen qaar ka mida warbaahintii goobta gaartay waxaa hindhahaagu qabanayaan dad gubanaya qof madaxa dhinac foqay iyo gacan go'an iyo lug keligeed meel taalla qof caloosha ka soo jeeda iyo kuwa qolfoftooda xitaa aan la garan karin oo dabka aad ugu bislaaday waxaa kaloo caloolxumo ahaa in dad badan oo dhismayaasha ku burburay laga soo saari waayo dhismayaasha hoostooda gurmadka ilaa iyo maalintii labaad ayay dad ka soo saarayeen dhismayaasha hoostooda isbitaalladii ku yaallay magaalada Muqdisho sida Madiina Digfeer iyo Kaamil waxaa buuxdhaafiyey dhaawacyada iska soo dabadhacaya ee ka imaanaya dhanka goobta qaraxo ka dhacay dhaawacyada iyo dhimashadu way sii kordhayeen marba marka ka dambaysa ilaa ay gaareen ku dhawaad 800 oo qof oo dhaawac iyo dhimasho isugu jira sidoo kale qaar ka mid ah dhaawacyadii qaraxa Zoobe oo xilligaas loo arkayay in aan gudaha Soomaaliya waxba lagu qaban karin ayaa waxaa loo kala qaaday dalalka Turkiga iyo Suudaan oo ah dalalka ugu horeeyay ee u soo gurmaday shacabka Soomaaliyeed kuwaas oo lagu tiriyo in ay yihiin dadka ugu dhow ummadda Soomaaliyeed guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa daawadayaal barnaamijkeena ma og tahay oo aan toddobaadkan ku faaqidaynay musiibadii 14 Oktoobar ee qaraxii Zoobe inta barnaamijkan mid la mid ah aynu ku kulmi doonno toddobaadka soo xiga waa bahda barnaamijka oo isku duwan oo idin leh sidaa iyo nabadiino nooli kulanti dambe oo xiiso leh